الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. marka ugu horeysa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ku mahadsan inuu maanta noo soo fududeeyay dhalinyaradan Soomaaliyeed ee muhaajiriinta ahaa ee ku soo rafaadeen dalalka deriska la ah dawladda dalka Algeria sida Tunisia, Mauritania, Niger, Mali iyo Libya. mahada Ilaahay ka sokow waxaan doonayaa inaan mahad gaar ah u celiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud dadaalka joogtada ah ee guud ahaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed oo nagu hogaaminayo iyo gaar ahaan da'yarta Soomaaliyeed ee ku rafaadsan dalka dibadiisa gaar ahaan dhulka saxaraha ah ee rafaadka ah ee tahriibiyaashu muxuu ahaa ilmaha dhalinyarada ay tahriibinayaan marka insha Allah ta'ala dhalinyaradan Soomaaliyeed way soo noqdeen dadaal la geliyay oo madaxweynuhu geliyay oo wasiirka arrimaha dibadda geliyay oo wasiirka dhalinyarada sportiga geliyay oo walaashay xafiiska madaxweynaha Maryan Yaasiin Xaaji Yuusuf ay gelisay iyo safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Algeria oo hawshaas oo dhan isku haysay mahada ka sokow waxaan rabaa mahad gaar inaan u celiyo hay'adda IOM-ta oo dadaal badan nagu bixisay in dhalinyaradan la soo celiyo si nabadna ay ku soo noqdaan qof la soo khasbayna ma jiro keenida dalka lagu soo celiyay inta waxaan leeyahay waa mahad celinta dhalinyaradan soo noqotayna mahad gaaran u celinayaa iyo waalidiintooda nagala shaqeeyay inay soo noqdaan aad ayaan ugu mahad celinayaa waalidiinta qaar badan baa marka hore wax ka qabay in soo noqoshadooda laakiin waxay ku qanceen dhibaatada dhalinyarada haysatay markay ogaadeen waxay aqbaleen in dhalinyarada soo noqoto ma haddaana waalidiintan u celinaya iyo dhalinyaradan gadaasheeda taagan kuwa kale ee hadda jooga Algeria laba kooxood kala ku soo xiga oo midna waa diyaarsan yihiin midna waa la diyaarinayaa kuwa kale ee ku rafaadsan Algeria iyo nawaaxigeeda waxaan leeyahay hadda diyaar u tihiin la soo xiriira safaaradda insha Allah ta'ala waalidiin adeegaya inta aan karno waan idin adeegaynaa in dalka aad nabad ugu soo noqotaanna waa ka shaqaynaynaa waxaan leeyahay dhalinyarada soo noqotayna waxaan leeyahay muxuu ahaa hay'adda IOM-ta iyo dawladda Soomaaliyaba diyaar waxay u tahay inta la karo in waxa la idin taro marka Ilaahay idinkiis waa la dadaalayaa dhalinyaraduna waxaan ku talinayaa dhibka idin soo gaaray qiimeeya dhib kalena ha u noqonina waxaan leeyahay dadka wax bartay oo jaamiciyiinta ah haday rabaana waxay gali doonaan kii raba ciidamada dalka oo dalka maartay saraakiisha ciidamada ay kamid noqon karaan oo tababar qaadan karaan waxay noqon karaan kuwa aan waxbarashada aan dhamaysan jaamacadaha ku noqon karaan kuwa dugsiga sare aan dugsiga sare ku noqon karaan kuwa jaamacadaha dhameeyay hadii fursad la helo hore u sii socon karaan marka waxaan leeyahay hore loo socdo dadaalka la sii badiyo wadajirka qiimo badan kala taguna waa dhibaato marka waxaan leeyahay aan wadajirno idinkuna tusaale u noqdo dhalinyaradii kale idinka maqnayd la hadla qof kasta oo u baahan inuu soo noqdo telefinkii waa haysatiin ugu soo xira insha Allah tabaala soo ilaa sida aan dhalinyarada qaarkood aaway ninka la yiraahdo Ahmed ninkan dhalinyarada kale waxaan ka soo celinay xuduudda Morocco ka soo celinay saa ila soo xiriiray runtii waa nin dhalinyaro fariid ah oo dhalinyarada aan dhibka badnayn intaan hadda hawsha ka shaqeynayay hal maalina dhib ma ka dareemin dhalinyarada kale oo dhibka ka shaqeynaa macna aan dareenina dhibka haysta ayaa u geeyay inay ay noqdaan stress ay qabaan qaarkood neef ku dhacdo qaarkood sonkorow macaan uu ku dhaco qaarkood macaan dhikar ku dhaco waxaas oo dhan dhibaatada ku dhaco qaarkood waa la garaacay qaarkood waa dhibaato loo geystay intaas oo dhan waxaan leeyahay Ilaahay ha idinka muxuu ahaa khayr idinku bedelo gunaanadku wuxuu noqonayaa dhammaanteen aan wada jirno dalkeenuna aan dhisano annaga iskale